هذه مر صدحابة مرة تاكتا مرة تمرتا وحبها الله حرين ديار بالغاغي هاي هالكن haddaad ku nabad gasho halka aad joogtid sida aad inoo go'aamisay bootano sida aad noo go'aamisay baan kula qaadanay waynu noo sarki doonaa adigoo maxbuus in lagu keen doono rasuulillah dhamaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan bulshada SSC waxaan rabaa inaan halkan salaam soo mariyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan ka bacdi waxaan rabaa inaan halkan warbixin kooban wixii maanta ka dhacay iyo xaaladda gobolka Sool maanta saaka markay 9kii iyo barkii qiyaastii ahayd maamulka Somaliland maleeshiyadiisu waxay weerar ku soo qaaday jahooyin badana magaalada Laascaanood taasoo ujeedadeeda koowaad ay ahayd inay qabsadaan gobolka dhamaantii magaalada Laascaanood ama qaybo kamid ah waxa muujinaya sida ay weerarka u soo galeen waxay ka soo weerareen dhanka bari waxay ka soo weerareen dhanka waqooyi iyo dhanka galbeed intaba dhamaan intaba waa lagu jabiyay waana lagaga guuleystay meelo kamid oo ay markii hore joogeenna waa lagala wareegay waxaan leenahay guul iyo gobonimo bulshada SSC aad iyo aad baad u difaactanteen waadna ka adkaan doontaan insha Allah intaa waxa dheer qaabka ay u kala hadlayaan maamulka Muuse Biixi iyo beesha dhexe ee Somaliland ama beelaha dhexe ee reer Sheekh Isaaq qaybaha kamid ah ama siyaasiyiintooda ma aan raahdo waxaan leeyahay dagaalka saaka wuxuu ahaa dagaal ku talagala oo ay ku talagaleen kor iyo hoosba weerarka isaga ah waxaan maqlayay oo hadda ka bacdi waxaanu ahaan doonaa weerar waxaan u maleynayaa weerarka kaad soo qaaday maanta mid ka badan inaadan qaadi doonin laga hogaaminayay ilaa gooja cadde ilaa Hargeysa inta u dhaxaysa oo la og yahay Muuse Biixi iyo tiimkiisa la shaqeeya inay ilaa maanta fadhiyeen meesha Maleesiyada laga xukumo halkaana ay dagaalka ka hogaaminayeen oo ay isleeyihiin khidada cusub iyo si aad guul u gaadhaan u dhiga waxaan leenahay waad ku guul daraysateen waxaan leeyahay halkan inaan yana uga sheego Faysal Cali Waraabe oo aan rabin warkiisa inaan ku dheeraado Faysalow darabna waxaad lahayd ciidanka laga soo saaro jabiye meesha ku jabnay meesha laga soo saaro oo hay yimaado meel laga wada hadli karo ama meel nabadgelyo lagu raadin karo maantana waxaad leedahay waa ku garab taaganahay dhibaatada ay geysanayaan hadalkaaga ducis ugu awalba Faysal baa lahayd lagama filayn hadal toosan iyo mid wanaaga midna lagama filayn adiga inta ku dhaafi maayo wiilkan isaga weerar baanu hadda qaadi doonaa aan ku celiyo mar labaad iyo mar saddexaadba marra taagta marra tamarta waxba la harin diyaar baa lagaaga yahay halkan haddaad ku nabad gasho halka aad joogtid oo in badan aan ku dhowreynay xabad joojinta oo ku ilaalinaynay in la gaaro meel laga wada hadli karo aad tagto haddaad u bedeshay luqadda noocaasa ficilkeedina maanta laga arkay waxaan ku leenahay soo dhawow marra taagta marra tamarta waxba la harin awalba wax kuma harsanayn wax ku dhiman garan mayno hadeer xaqana diyaar baa lagaaga yahay waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed oo loo jeeday maanta la filayay in qaybo kamid magaalada ay yimaadaan haddana ay joogaan oo xaqiiqo raadisa wixii ka dhacayna way arkeen indhahooday ku arkayeen inta aan jooginna dhagahooday ku maqlayeen wixii ka dhacay maanta meesha oo aan wax loola hadhi jirin magaalada iyo dadkii ku noolaatoona oo weerarka ay dheerayd hobiyayaashii
iyo gantaalihii lagu soo ridiyay magaalada oo dhimashada iyo dhaawaca badan ka geystay iyo burburka aan la soo koobi karin oo awalba intii ka harsanayd maalin walba inta kale laga dabageynayo indhihiina idin markhaatiya iyo dhagihiina halkan waxa joogaana waa ummadii Soomaaliyeed oo xil ka saaran yahay cid kasta oo waxgarad ah iyo cid kasta oo mandate aqoonsi u haysata ummadda Soomaaliyeed intaba beesha caalamka waxaan leenahay waad maqlayseen maanta ninkii haystay Maleesiyada argagixisada ah oo aan wax alla waxay u aabayeeraysaa ummadda jirin oo doonaysa inay dabar goyso ummadda gobolka degan insha Allah se iyaga ku dabar go'i doona waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo xal nabadeed rabta raadinaysa oo naga dulqaada culayska saaran oo ummadda Soomaaliyeed kala badbaadisa ummadda Soomaaliyeed dhiigeeda kala badbaadisa oo dhalinyarada la soo khaldayo oo aad arkayseen oo ay lahaayeen mushahar baa meesha ay keenay aan qadiyad kale meesha ugu jirin waxaan leenahay ummaddu ha laga qabto ummadda nimanka halka Hargeysa fadhiya oo bahasha dabada ka soo riixaysa iyo kuwa Maleesiyada u horjoogayaasha ah waxaan leenahay waa qaab argagixisanimo waa qaab aan cid alla cid qaadan kartaa jirin waa argagixisyo sharciyaysan adduunku wuxuu waday in argagixiso la sharciyeyn laakiin tani waxay u agtahay argagixiso la sharci gareeyay oo loo ogolaaday waxay doontaba inay ka samayso ummadda dhexdeeda iyo caalamka waxaanu filaynaa sidan hadday ku sii wadaan inay wadamada deriska gaari doonto dhibaatada ay wadaan ee aan kala reebka lahayn oo qayla dhaanta leh oo ay kor iyo hoosba u wadaan waxaanu ugu baaqaynaa cid kasta oo nabadda jecel nimankan iyaga ah oo argagixisada madaxda u ah in laga qabto runtana loo sheego leysna garab taago nabadda iyo wanaagga iyo xabad joojinta inta aanu ku baaqayno iyaguna ay qaadan la yihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa nimanka argagixisada kooxahan argagixisada ah horjoogayaasha u ah sidaan markii horeba sheegay haddaad joogi weydaan waa laydin joojin gacan biraa laydinku qaban waadna ka shallaayi doontaan haddaad maanta weli sii dhaqdhaqaaqaysaan waad ka shallaayi doontaan in badan baanu nabadda iyo wanaagga xeerinay in badan baanu dhowrnay xabad joojinta in badan baanu xal walba soo dhaweynay laakiin maanta wixii ka dambeeya sida aad inoo go'aamisay Botanow sida aad go'aamisay baanu kula qaadanay waynu noo sarki doonaa waxaan rajaynayaa adigoo maxbuus in lagu keeni doono